السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركل إبغال عصب ما تا كسر دان لين صاحبتنا كذا كسر تيس قريب نوصل هدية هرنا لو جوكتي وأكون ما صدق اللي جو جاga ما أنت معني هنا وعني هنا في أكشن هيستدب كذا يبوق كذا وضعت مسوق عليه لمن أن أونلي بعيل أركا يفتح الموديل كله هل كان أكو جيه دونا داوشوا أنا وحاب إيه قدن خاف كل وصل قلبه وحان توب دافت بلاي وبلاي دافت وحان والله اسمع الله ركب ما قون كرنا إست وحوا وحلوسو قلي خاف ولا سكسو قلي استمرت بالله كوسي سعنا انترو غاب توب قلبي دايا دمستيران دي مطمر إما دي بوالنا دي قيدي قبيدح ودهي دمستيران ولا داعي ودهي دمستيران ولا داعي قلبي دايا دمستيران دي مطمر إما دي بوالنا دي قيدي قبيدح ودهي دمستيران ولا داعي ودهي دمستيران ولا داعي قلبي معناها قلبي ضيدا عمل قلبي كله عمل دمستيرن معناها قلبي أنا كان دمستيرن وأنا كل واحد عمل ده حاسس وده سنجاله كديجي درارتي أن دكتور يقولي لما أنتي عاشق بابي كودا دبي كودا تو كلا دحبحي برحبا معناها إن لا تجي لفت لوش هريستي لا فريستي استوى هو كاميرامان هو بكم بدي كرنا كله دمر دقيقة كلا دحبحي كديجي درارتي أن دكتور يقولي لما أنتي عاشق بابي كودا دبي كودا تو كلا دحبحي أنت دمر دقيقة كلا دحبحي ودي اللي تيرا ودايا بيلا والروح دبتي لو دي مكرو وطان دمان ردقيو هبلها كدويستين كلا سودا فحبا ودي اللي تيرا ودايا بيلا والروح دبتي لو دي مكرو اسمع ما العرك وضلك دي جرا اسمع العرك ما تقدر جرا ما العرك ما تقول ده لا يقرب حمام دي سو تورني ميداس روماتيك waxba kama dhigi karna kus waxa waay haysta qaabkas loo keenay qaabka loo diyaari wallahi waxa waa wallahi garbaxay haystan marka waxba kama dhigi karna aan ku socon watan dhamaan dhadigiyo hablaha ka dhaweystayeen kala soo dhaxbaxay دبي بحي سيدي سيد الكموري ودبل هبلها دير دور سنان من دوغن ملو ديغا دي هقروح من دوغن ملو ديغا دي هقروح دبي بحي سيدي سيد الكموري ودبل هبلها دير دور سنان من دوغن ملو ديغا دي هقروح من دوغن ملو ديغا دي هقروح هسه انا وحابي قدن قاب كله باش بقران كاتلو هجاجي باش لو ديسي لا انت دبا لوغ شيري مالay ku xireen ist waxa waay ya Allah garbaxay asiga waxa waay la la li karna xaasni lees waa dhaafta xaas waana way alaabti waxa waay ya way hore al soo qaat kawan gawaag hore soo qaatay meesh waxa waa habal lagu dhigi karo dhaqankiyo intaa wax ma dhaafsato dirjaniyo dhulkaalku ma dhaashatay dhigta midab ka dheehoy dhinka ahi waa u dhalash dabaya dhaxalado dhaqankiyo intaa wax ma dhaafsato dirjaniyo dhulkaalku ma dhaashatay dhigta midab ka dheehoy dhinka ahi waa u dhalash dabaya dhaxalado والروح دبتي لو دي منكرو وطان دمان ددقيو هبلها heystan waxaan dhigi karnaa malaha kulli aan aragna falcelinta bulshada
بالبشاري oo ka hadlay heestan bal aragna qaab ugu falceliy heestan iyo wuxuu ka dhahay laan fiirina 2024 heesta gilgili doonto dhammaan guud ahaan Soomaalida iyo East Africa. heestan oo ay ka shaqeeyeen in ka badan 100 dhalinyaro ah ayaa la rajeynayaa inay noqoto heesta ugu saameynta badan. la garaalo booshkaas dhinaca 100 dhalinyaro ka shaqeeyay naga daacada de booshkaas horta u maleynay 100 inuu shaqeeyay laakiin waxa aan ciyaarana ugu wada markaas 100 dhalinyaro booshkaas heesta loo garbaxay ayaa waxay noqotay heestii ugu dhaqaalaha badneed ee dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyay ee sanadkan hadda lagu jiro iyo sanadka soo socdaba. heestan way adag tahay in iskoorka u yaallo la soo gudo ama uu ka soo baxo fanaan kale ee Soomaaliyeed ee jooga dalka ama dibadiisa. heestan qiyaas ahaan waxaa la qiyaasaa inay ku baxday in ka badan $30,000. haddaba waa $30,000. Ismaaciil ayaa sameynaya possible wana musical hees $30,000 wallahi waxa la muddo kara hal muuqaal macnaha oo hal hees macnaha 30 abaka muddo kara kulli umaleynay taa kulli inay rabto inay been sheeg taariikh ku cusub wax soo saarka fanka Soomaaliyeed asigoo u raray adduunyo kale oo caalami ah. heestan ayaa waxa sugaya in ka badan 10 milyan oo Soomaali ah. sida la arko waxay sameysay heestan saameynta ugu badan ee waqti xaadirkan kulli waaragtaan heesta qaabka ugu falcelin kulli wixii falcelin wixii adi xaq aragta ahaantaada heestan waxa ka qabtid iyo macnaha qaabka heestan loo doobay macnaha ahaantaada heesta qaabkee macnaha adi ay kula ekan tahay waxay ka turjumaysaa kulli ani waxa waa intii aan u maleyn karo waan kaaga sheegay kulli adi ahaanta fikirka comment inoogu reeb wixii aan heesta ay kula tahay macnaha qiimaha hada la sheegay heesta ma ku baxdi muuqaal ahaanta ka waran wixii fikir ahaantaada kulli comment inoogu reeb boqolkan ugu bixinay reaction ka heesta intaas ugu baxaya waxaan ku leeyahay welcome